بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعان او wanaagsan daawadeel ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka ee janalkeena kulmiska wararka qodobada aan kuga helno waxa kamid noqon doona wadaad isku sheegay faafin jiray fikradaha xaq jirka ee dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayay ciidamada dawladda federaalka ay ka soo xireen dawladka ceelasha biyaha ee Muqdisho kadib xogtiisa oo laga warhelay wadaadkan warbixin ku saabsan ayaa daawad doontaan qaabka howlgalka u dhacay sida ay ugu suura gashay in ciidamada dawladda ay wadaadkan ay gacanta ku soo dhigaan Cabdullaahi iyo Mustafa walaalaha safka labada dhinac kaga jira dagaalka dawladda iyo al-shabaab haddaba maxaa ka jira in wadaadkan la soo xiray uu la dhashay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Generaal Cabdullaahi Cali Caanood waa idin soo gudbin doonaa xogta dhinacyada walaalaha ee labada dhinac dagaalka ugu jiraan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona Mareykanka waxa uu $10 milyan oo dollarka Mareykanka ah gaarsiiyay abaalmarinta dul saaran Ameerika iyo madaxda al-shabaab cidii keentaana ay heli doonto lacagtaas $10 milyan oo dollarka Mareykanka ah Mahad Kartay Ahmed Diiriye iyo mid kale oo ajaanib ah ayay dul saareen lacagtaasi Mareykanka waan idin soo gudbin doonaa waxa kale oo daawad doontaan haweeneydii fulushay qaraxii Istanbul oo la qabtay sawiro cid ka dambaysa oo la shaaciyay haddaba haweeneydaasi waddankee bay u dhalatay qaxooti miyay ahayd ma jirtaa arrintaasi faahfaahinta booliiska Turkiga ay bixiyeen maxaa ka jira xogta haweeneydaas ay shaaciyeen waa soo gudbin doonaa waxaa kaloo daawad doontaan oo wararkeena qayb ka noqon doona saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyay odayaasha mudulood oo gaaray deegaanka ah Cadalle ee Shabeellaha Dhexe halkaas oo ay ku dagaalameen dadka maleeshiyaad walaalaha oo wada dhashay qodobadaas aan ku faahfaahin doona wararka caalamka diblomaasiyadda fadlan muuqaalka la saarsiin shirgaray aad baad u mahadsantihiin had iyo jeer si aad nala socotaan oo nala jaanqaadaysan bal aan ku bilaawno markaan wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay xireen sheekh ku caanbaxay afkaar kul oo diini ah haddana loo haysto taageerada al-shabaab ciidamada ayaa xabsiga u taxaabay sheekh Mustafa Cali Caanood iyagoo ka soo qabtay deegaanka ceelasha biyaha ee dawladka magaalada Muqdisho halkaas oo khudbadaha ka jeedin jiray masjid ku yaala wadaadkan ayaa baraha bulshada marar badan lagu faafiyay muuqaaladiisa asagoo gaarsiinaya dad badan oo ay ka mid yihiin dhalinyarada ciyaaraha jecel ee taageera kooxaha ka dhisan Ingiriiska iyo Talyaaniga xarigiisa ayaa yimid iyadoo markaas la sheegay inuu si buuxda u taageeray kooxda al-shabaab oo dagaal kula jirta dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay howlgalkii lagu soo xiray sheekh lagu magacaabo dawladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay howlgalka lagu xiray wadaadkan lagu magacaabo Mustafa Cali Caanood oo ay ku eedeysay inuu faafin jiray fikradaha al-shabaab qoraal ka soo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in iyadoo markaas laga duulayo go'aanka dawladda ee la xiriira ciribtirka al-shabaab in ciidamada amniga waxa ay soo xireen baaliri Mustafa Cali Caanood oo ah shakhsi caadaysay faafinta fikradaha kooxdaasi howlgalka lagu qabtay Mustafa ayaa ka dhacay ceelasha biyaha iyadoo markaas ciidamadu ay ka warhareen xogtiisa howlgalka lagu qabtay Mustafa ayaa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha waxaana la qabtay xilli uu isku dayay inuu ka baxso ciidamada amniga Mustafa ayaa ah shakhsi caadaysay faafinta fikirka qawaaridta waxaana fariimihiisa ay ahaayeen baaliri kuwa loogu talagalay in lagu marin haabiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka warka ayaa lagu sheegay in Mustafa loo horgeyn doono sharciga si loogu ogo dambiyada uu markaasi galay ee lagu eedeynayo inta aan ka bixin wadaadkaas iyo dambiyada kala duwan loo haysto oo xabsiga markaasi loo taxaabay saaxiibayaal maxaad kala socotaa xogta ah in Mustafa uu la dhashay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya Generaal Cabdullaahi Cali Caanood dabcan magaca sida ka wada dhagsantiinba waa isku wada mid hase yeeshee waana wararkii ugu dambeeyay oo xogaha rasmiga aan la sheegayaan in ay yihiin waa laba walaalo ah waa laba shakhsi oo walaalo ah hase yeeshee waxa ay ka soo kala jeedaan laba saf dagaalka haatan ka soconaya gudaha Soomaaliya iyadoo oo mid kastana u hadlo dhinac uu ka tirsan yahay mid waa afayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Generaal Cabdullaahi Cali Caanood xilkaas oo loo bi ka hor loo magacaabay toddobaadkii la soo dhaafay warbaahinta ayuuna ka soo muuqanayay isagoo markaas garaadada ay ku taxay oo ka warmaya khasaaraha la gaarsiiyey al-shabaab meelaha laga qabsaday iyo weliba guusha ay gaareen ciidamada dawladda dhanka kale waxaa masaajid ku yaala ceelasha biyaha laga qabto wadaadkan oo asna dhashay wadaadkan oo asna ku sifooway faafinta nooc kasta oo fariimaha xaq jirka al-shabaab ay leeyihiin masaajida ku yaala ceelasha biyaha ayuuna ku khudbayn jiray dawladda Soomaaliya ayaa hore u iclaamisay dagaalka al-shabaab dhan kasta ahaa sida dhaqaalaha
fikradaha iyo meelo walbaba oo al-shabaab markaas waxay keli karaan in laga hor istaago. qaybihii hore ayaa daawanaysaan muuqaalka laagsaar siino shargareya aad baad u mahadsantihiin. bal halkaas ayaan kaga baxaynaa wararkii ku saabsanaa wadaadkii lasoo xiray ee caanood ahaa ee faafin jiray fikradaha dagaalamayaasha al-shabaab. bal markaana aan eegno maraykanka wuxuu $10 milyan oo doolarkaasi maraykankaana dul dhigay 3 horjoogo oo ka tirsan ururka al-shabaab oo uu sheegay in haddii la keeno xogta dadkaas meeshay ku suginna lacagtaas ay heli doonaan. dowladda ayaa si weyn u kordhisay lacagta abaalmarinta ee dul saaran madaxda al-shabaab ee la siinayo qofkii keena xog lagu qaban karo ama lagu dili karo. war ay faafisay wasaaradda abaalmarinta cadaaladda maraykanka ee raacsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu shaaciyay magacyadii 3 ka tirsan hogaamiyaasha ururka ugu sarreeya al-shabaab iyadoona mid kastana la dul dhigay abaalmarin lacageed oo $10 milyan oo doolarka maraykanka ah. lacagta abaalmarinta ayaana la siin doonaa bali qof waliba oo keena macluumaad ka horseedi kara in la ogaado halka ay raggaasi ku dhumaanayaan. qoraalka lagu faafiyey bogga twitterka waxaana sidoo kale lagu faafiyey bogga twitterka safaaradda maraykanka ee muqdisho iyo nairobi. ilaa iyo $10 milyan ayaana lagu bixinayaa xogta ku saabsan argagixisada kala ahmaad karatay axmed diiriye iyo jihaad mustafa kuwaas oo ku lug lahaa baa yidhi weerar badan oo lagu dilay 10 qof ah gudaha soomaaliya, kenya iyo dalal kale. ma garanaysaan halka ay isku qarinayaan ayaa lagu yidhi qoraalka. maraykanka ayaa sheegay in qofkii la soo wadaaga macluumaadka madaxda al-shabaab uu heli karo lacagtaasi $10 milyan oo doolarka maraykanka ah. amiirka al-shabaab ayaa horey madaxiisa waxaa saarnaa $6 milyan oo doolarka maraykanka waxaana hadda la gaarsiiyey $10 milyan. axmed diiriye cumar abu cubayd sidoo kale loo yaqaano axmed diiriye cumar oo sidoo kale loo yaqaano abu cubayd waa hogaamiyaha al-shabaab. macluumaad badan lagama yaqaano taariikhdiisa balse waxa uu hore u ahaan jiray madaxa garabka al-kataiba. qaybihii dhexe ayaa daawanaysaan muuqaalka laagsaar subscribe-ka noo dheh aad baad u mahadsantihiin hadda jeer si aad nala socotaan oo nala jaan qaadaysaan. bal markaana aan aadno wararka arrimaha caalamka. haweeneydii qaraxa ka geysa waddanka turkiga waa lasoo qabtay. dowladda turkiga iyo hay'adaha ammaanka ayaa faahfaahin iraada ka bixiyey qeexi shalay ka dhacay magaalada istanbul iyadoona soo bandhigay haweeneydii ka dambeysay qaraxaasi ka dhacay waddankaasi turkiga. magaca haweeneydan ayaa lagu sheegay axlam al-bashiir waxayna u dhalatay dalka syria. sidoo kale iyadoo markaasi ay shaqaaleysiiyeen ururka shaqaalaha kurdiyiinta ee PKK oo ah jabhad dagaal kula jirta dowladda turkiga waxayna markaasi u tababareen sirdoon gaar ah. haweeneydan ayaana si sharci darro ah ku gashay dalka turkiga iyadoona martay xuduudka afrin idlib oo u dhexeeya dalalka syria iyo turkiga si ay howshaan ay u fuliso. haweeneydan oo wadatay teleefon mobil ah oo ay markaasi soo qaatay magaalada kobane ee syria kuna timid istanbul. booliiska oo dabagal ku hayay teleefoonkaas ayaa ugu dambeyntii xogtaas helaya. wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga suleyman shiyulu ayaa sheegay in haweeneydan isqarxisay isgoyska wadada xurriyadda ee istanbul ay u qorsheysanayd inay markaasi maanta iskaga baxdo dalka turkiga una gudubto dalka giriiga haddii aan gacanta lagu soo dhigin. hase yeeshee ciidamada oo xogtaas kol horeba ka warhelay ayaa gacanta kusoo dhigay oo soo qabtaya. qaybihii gabagabada ayaan isa soo gaarin saaxiibayaal. ugu dambeyntiina haddii aan eegno waxaa gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaala xeebeedka Cadalle gaaray odayaasha dhaqanka mudulad. halkaas waxay u tageen in ay xaliyaan ama ay kala galaan dadka walaalaha halka ku dagaalamaya oo colaad culus halka ku dhex maraysa beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya shabeellaha dhexe ayaa dagaalkooda soo qasaare kala duwan ugaasyo kala duwan ayaan hogaaminaya oo beesha mudulad ka tirsanaa. wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka aad kala soo ganjal keenno waa inta